وحاكلوا كمدة قصص كعجائب كلا كمدة قصة بلال قبصتي يصوبنا عبد الله بن الحي الهوزني تابعي لأورنجري أي وحول يا المسلمين حالها يصوم مرين يا النبي قابك أصوم مامولي يا صحابته هوشة سيقصوا قد بيت فقري يا باهدي يا دباتي الله صوم مري يا ما أنت وانا جرة مركز تابعي وحول إسجيري بلال مركز سوريا مال كمدة هذا حلب ليدا هذا إمام والي جبرناتورا كأها ayuu u tagay wuxuu waxaan doonayaa nafaqada iyo biilka iyo qaabku nabigu wuxuu maamuli jiray dhaqaalihi iyo iqtisaadku nabigu wuxuu ku maamuli jiray wax iga sheegto bilaal wuu qoslo wuxuu warnabay maxamed wax dhaqaalaha muusan gobannimo iyo xilkasnimo ayuu wax ku hayay mooyeen hantu ummad ku maamulo muusan hayn nabigu maalinka la soo saaray ilaa maalinku geeriyooday ana ahaabo wasiirkii maaliyadda khasnajiga nabiga xogeeyihii ana ahaabo هل قصان كو شيغي تا كو عبره قاده بوري وحنا قبصدي ان سو مري قصدا ما حيتاه وحو يري markii aan Madiina nimid aan soo hijroonay baahi badan baa iska jirtay muslimiintuna si habqanay u imanayeen Madiino barakac badan baa jiray reemii barakacayo abaara ku dhaceen baa jiro muslimiin aha muhaajiriin cusub dal tabyooday baa jiray Madiina la qabsan waayay ansaar iyo gob ah hadana muslimiinta Soomaaliya ka badna nabi wuxuu yiri bilaal waxaad yeeshaa wixii aan haynay xoolo aad aragtana ruuxii muslimid aragtay baahan ku arad bixi soo dhawee midaad sooriyeyso iyo midaad arad bixisa ka dhig haddad wax weydo dayn inoo soo qaad markaan waxeelaan iska bixinaynaa waxa loo dayn qaadan ee bilaal iyo subanu deymaha ay isu saarhayaan naftooda iyo dantooda mee waa dan muslimiin wuxuu yiri waagi dambe ayaan suuqan tagaa ganacsatadii gaala iyo muslimba wixii jooga Madiina intaan islaamku baahin bay ahayd ayaan dayn weydiisan jiray dayn baan soo qaada muslim baan ku arad bixiya asxaabu sufan waraashin oo kariya hawshaasaan waday buur waagi dambe nin yahuudi ah ama mushrik ah oo Madiina maal qabeen aha ayaa ii yeeray buur wuxuu yiri bilaal waxaan ku arkaa maalin walba adoo suuqa wareegahayo la dayn yaa isiiya ee waxaad yeeshaa maalinka dayn u baahato imo aniga ana ku siinayay ninku yiri niyo waanu deeq ku siin mahay maalinka dayn u baahata albaabka soo istaaga kugu taagahayay waxa aad bad ugu farxi waana soo dhaweyn wax siismaha ayada mararka qaar ka qiimo badan daynad u baahan tahay ninka ku siiya ayaa mararka qaar ko deeqda ka wanaagsan marka aad baan ugu farxo waxaan yiri laakiin nabiga aan la soo tashanay kugu soo celiyo nabiga aan ku soo noqday nabi allow waad oga dibkeena haystay dayn baan inta raadin jiray nin baa maanta wuxuu yiri marka dayn u baahatay ima waa ku siinaya waxay doonay hal noqotay ninka bal ka war nabigu wuxuu yiri waa gobannime waa faraj ilaahay inaga soo qaad waa iska bixinaynaa dayntii baan iska qaadan jiray buu oo muslimiintu ku waxsin dayntii markay badatay mudayna lahayd muddada ay soo dhawdahay 5 maalmood ka hadhay yaa bilaal wuxuu yiri anoo intaan weysiisay duhurkii hortii doonaya marka duhurka laga inaan aadaamo oo muslimiin salaad ugu yeero muslimiintii buu wasiir iclaam u yahay xagga warbaahinta asaga u jooga salaadihi asaga ugu yeeri asaga aqimi xaggi maamulkii maalkii dibkoodana bilaal buu saaran yahay nabigana asaga gacanta ku haya hawshiis dhaqaale salawaatu rabbi wa salaam alayhi anoo taagan buu weysiistay baa ninkii deynta nasiin jiray gaalka aha iyo niman ganacsato la socda igu soo baxay markaasuu yiri yaa xabashi bilaal magaciyo qoyskiisa u tiirinaya wuxuu ninkaadan xabashigohu ما أكتهاي بروحة كاحجة مددي إنما دونك 4 ليال أفر هبين بقى كاحج تحل بلانت حولين كسيني الدين هي دقيقة جماعة هاين بوري حرمين أديك أنكو حرمين جماعة هاين بوري صاحبك محمد صلوات ربي وسلام عليه تعالى ما هايني وحن دون يجيبوا الدين تنتهز قاعدو أي بلاطو أو تكب حين ويدو إن أنفودك هاجو ينكو أدون صدام كوجعلي واحد أهنجر تيبو بلال أدونمي وصومر وواد قرنيسان وحا حريي أبو بكر بائيبي واد قرنيسان واقانا وحاجر رقن أن وليلا نسخينو يمكن الدين انتي اللغوية اسكت بحين وايا ولا أدون سنجري فود هوراتي مها لقاب قوين وانا علامة ان الأدون طاي هدي دقال لغو قبط فود لقاب قوين هدي لغو منقنشو لقاب تبربط فود لقاب قوين هذا الدين اسكت بحين ويدو فود لقاب شري كدبنا قوسار بان نغن أدون بان نغنيس عبد الله تابعي وحوري بلال ومركو سداك ويري محاضر ينتي من حر او مسلمين او ادامها هي او دولة مامولها هي
oo la yidhi waxaan rabaa 4 bari kadib wixii ka dambeeya inaan ku adoonsado oo ariga ii raacdo maxaa dareentay buuri nin raga wuxuu dareemi lahaa baan dareemay laakiin nin deyn kugu leh dow buu kugu leeyahay waa iskaga aamusay waxaan dhibru balbalanta hal la gaaro oo iska tag bilaal gobannimadiisu u fiirso dhibka yar ninku la soo koray inagu hadda uu mataq uu cala cali uu walaa hoobi meelaha soo ordi nafta ka bixi dhig karbaaba ku dhiciye muxuu ahaa sonkor iyo stress baa ku dhacay bilaal waa iska aamus duurkii buu aadaamay waa la tukaday nabiga kama nixinin casarkii buu aadaamay waa la nabiga lama hadlin maqribkii baa la gaadhay waa la tukaday asaga aadaamay nabiga ooma sheegin sirta iyo gobannimada iyo dulqaadka iyo gegsiga bilaal ka muuqda waa inaad lagu daydaa la doonayay cishihii markii la tukaday oo dadka kala dareereen oo nabigu gurigiisii uu tegey buu keligii ka daba tegey nabigu salaamay nabi allow mu soo galahaa soo gal bilaal baa fadhiista nabi allow wuxuu yidhi maanta xoogow yaroon kaa qariye baa dhacay haye ninkii gaalkaabaa maanta ii yimid wuxuu leeyahay 4 bari wixii ka dambeeya waa ku addoonsanhaya ee maxaa tala ah bilaal wuxuu nabi allow inaadan hantida haynin waan ogahay ilaa asagaaba khasnaji ah dhibka dhanba nin ku dhaca asaga ah wax shilin oo ka qorson ma jiro nabi allow inaad heli karaan hantida ayada ah baan ogahay aniguna ma hayo xeradeedana kuma jirto xero toranta kuma ogoy buud adna ma haysid ninkan gaalkaana wuxuu doonayaa inuu ceebayo fadeexeeyo nabi allow waxaad yeeshaa waan carir waan baxsane oo dadka muslimiinta miyiga degan baan ka caan cabbi ku dhuumane inta ilaahay faraj ka keenahay mu'adin kale sii aadama sii sameysabo wax kala ma ah wuxuu rabaa inuu intuu madax laabo nabigana mu'adin u sii aadaama ilaahay faraj buu keeni doonaa waa ku kalsoon yahay ninkan inuu ceebayo foodo gooyo adoonsada aminkan geel raaciyo iyo ari buu diidan yahay islaamkiisa hijridiisana uu kaga ciyaaro nabigu wuxuu yidhi cabbaar bay iga aamusnaa oo nabigu waa walbahaaray marka wuxuu yidhi in shi'ta factami haddii ay kula qumanaatay waad yeeli kartaa waa runtaa oo ma hayo mana heli karo gaalkanna waad mooddaa inuu ku caabaynayo waad fasaxan tahay bilaal wuxuu yidhi waan iska tegay isla habeenkiiba gurigiisii buu tegey uu iskaabula ku ahaa wuxuu yidhi waxaan diyaarsaday ohligii uu sayda ku qadan lahaa warankiisii seeftiisii gaashaankiisii kabihiisii ubadii biyaha ahayd oo ku safri lahaa wixiiba meel saarta wuu barkaday wuxuu rabaa oogta horin oo dajabiyu doonaya la habeen lagama hortago marka la baxaaye intuu yar seexdo 8 saac iyo 9 saac meelaha marka la gaadho inuu madiina ka guuru doonaya markuu yaraha seexday yaa wuxuu yidhi beelo waan kacay nimay kodol ku taagantahay ma gam'o hurdadu ladii mayso hurda kaa iman mayso xogu haddaad laamadodo waad soo boodi wax yar markaan jiifo waan boodaa buu cirka baan firay xidigii saacad ma jirtee xidiguu garanhaya waa nin miyuu ku soo koray habeenkii inuu weli dhiman yahay waagu uusan dhoweyn buu arkaa uu seexdaa 3 goor markaan kaa fadhiistay oo marka afraad kacay buu yidhi ama 10 saac ku qiyaasan taqriiban yuu saxaabi kabiya gashaday asagoo alaabtii qaama labisanhay inuu baxajoonahaya nin ordahaya u yimid wuxuu yaa bilaal ajib rasuulallah isla habeenkii baa ilaahay nasri keenay boqor nasraani ahaa oo fadag jooga meel madiina aan ka dheerayn ilaa 50 kilomitir u jirta ayaa muslimiintii soo badan hayay iyo culayskoodii dareemay wuxuu yidhi muslimiintan bal hadiye iskaga dir 4 halaad buu intuu soo roray oo raashiin iyo dhar iyo alaab iyo maacun ka soo buuxshay buu nabi maxamed loo geeyay hadiye weeye 4 halaad oo raran baa habeenkii soo gashay bilaal lama ogo nabigu markii halahan aday iyo waxa saaranba waa hadiyo min maliki fadag bur war bilaal gaadha bilaal intuusan baxsanin ee uusan oota jabinin hala gaadho salaadii fajr haw aadaamee saasaa nabigu u soo diray saxaabigaa kale bilaalow waxaa leeyahay ajib rasuulallah markii intaa lagu yidhi yaa wuxuu yidhi bilaal alxamdulilah wuu gartay ilaahay faraj inuu keenay nabigu xalay soo kala tageen cishihii waxa uu nabigu fariinta kale u soo ceshay waxbaa soo kordhay ilaahay baan ku mahadiyey waan tagay buu alaabtii waan dhigtay waan ninkii baan raacay nabiga anoon gaadhin baa meesha hadda musalla ciid noqotay masaajidka dushiisa ahayd masaajidka nabi maxamed banaankiisa janaa'ista lagu tukan jiray ayaa waxaan maray 4 halaadoo raran oo fadhida oo wali heeriyadii iyo wixii saaraa uu saaray aan laga dajin oo la furin halii baan sii maray allah hadana ku xamdiyo waan nabigan u tagoon salaamay wuxuu yiri bilaalow ma soo martay geel fadhiya iyo alaab saaran soo martay awr dhugcaysa oo raran oo buuxda ma soo martay ha nabi allow wuxuu yiri 4 halaad iyo waxa saaran kulli adaa iskale adaa iskale wuxuu garanaya nabigu wuxuu oga jeedo nabiga ninka la dhaqma garanaya waa maxay wardaymii islaamka iyo culayskiina haysta inaga bixi way
wuxuu yidhi halihii baan ka dejiyey heeryadii iyo alaabta meel ka dhigay ayagii baan intaan kaxiyey baan meel ay wax ka daaqaan ku soo seetay ku soo dabdabay waan soo noqday salaadii fajr oo ka cayr lahaa buu aadaamay adaankii koobaad iyo kii labaad markii la tukaday waagu bariyay iyo raashinkii iyo maacuuntii alaabtii qaado suuqi baqiic buu geeyey wuxuu dhan buu cadeeyay wuxuu wixii deyn ku lahaa nabi maxamed ama aniga igu lahaa ha yimaad hadduu kaash rama kaash baan ku siinaynaa hadduu badeeca rama badeecu ku qaadan hawshii si u wada afartii waxay saaraa oo dhan 2 diinaar baa ka soo hadhay kulli deyn islaam buu baal ku bixiyey duurkii oo la gaarin baa la soo noqday afartii halaadna wuu iibiyey iyaguna wuu kaash gareeyay wuxuu dhan waxa ka soo 2 diinaar nabi maxamed oo keligii masaajidka fadhiya duhurna wali aan la gaarin banu imid buur waan salaamay suubanaha markaan salaamay yiri beelo wixii adduunyo dhankaada jiray maxaa ka hadhay nabi allah 2 diinaar baan ka soo reebayo aan isiri ruux muslima baahan galabta ama tiisa ama ruuxan wareegtada iyo dhawaqa aan maqal oo deyn nugu la amu soo baxa 2 diinaar oo indifaac ugu tala galay baan haya nabi wuxuu 2 diinaar gabalku intu saddexaad aan bixinin oo ruux muslima aadan siin ama aadan deyn ku bixinin guriga u dhalman mahayo caawa masaajidkan bari haya nabigu dhab kasto haysta wuxuu rabaa inuu saxaabadan tarbiyeeyo oo adduunyo waxay tahay baro oo xilkasnimo iyo mas'uuliyad dareensiyo 2 diinaar buu nabigu habeenkii gurigiisa u bariyay masaajidka beel wuxuu waan baxay 2 diinaar 2 shilin waxaan u dhibaaban waayay quman buu waan iska hayay nabigu habeenkii meesha uu bariyay masaajidku seexday gurigiisa oo ma dheelmanin maalinkii dambe uu beel baxay ruux ka qaatuba waayo 2 diinaar uu siiyo habeenkii labaadna nabigu waa bariyay 2 habeen buu masaajidka nabigu seexday bilaal uu bixin waayay awgeed 2 shilin uu sadaqayn waayay 2 shilin kaliya wixii kale dhan waa bixiyay 2 shilin oo soo hadhay baa bilaal lagu haysta wuxuu yiri bilaal galabkii saddexaad ee nabigu u dheelman lahaa masjidka ayaa waxaan heeyay 2 muslimiin oo musaafiriin oo sahayd ka gooda oo rafaatan oo indhaha wareejinay oo meel u dhaqaaqaan gabalku haduu dhac garan la masaajidka gashaan ma dawarsataan maxaa samaysaan yaa dhawr maxaad ahayda muslimiin baan xagee ka timaadeen meel heblo maxaa dhiba sahayd baa naga gooday war 2 shilin qaatabu 2 diinaar adoo diinaarkan ho kanna ho sahayd ay ku beegteen way ku arad bixay way bixin buu galabka nimankii markii buu soo orday bilaal nabigu iyo nabi maxamed oo ilaahay mahdi maanta 2 muslimiin dhiban baan 2 diinaar ku taagay nabi wuxuu alxamdulillaah ilaahi arahani minha ilaahayga culeyskeeda iga raaxayda mahad iskale 2 diinaar baa nabiga culeys ku haysaba adduunyo subanu halkaas uu ka jooga xadiidka asaga xadiid saxiix ah weey abu daawud buu ku yimaada ibn xibban xadiid sugan weey taabicigu marka baa isku majiro wuxuu yiri hada alladhi sa'altani anhu min nafaqati rasuulillah warbiilki nabi maxamed iyo dhaqaalihiisa iyo awoodi dhaqaaleedii weydiisay taasa cibrayatu sala kugu filan buu in nabigu 2 habeen uu meel bariyay aniga la adoonsan gaaray dib muslimiin iyo dhaqaale yari awgeed taasa cibra kugu filan waxaan uga jeednaa ilaahay baa inagu in hadda ina barakeeyay nin walba wuxuu maanta ku dhaqaaqo heli kara ninkan heli karin qaraabiyad ahal ku tiirsan yahay dabka la shita laakiin dad inaga daran baa jiro oo meel walba daadsan dadka muslimiinta ha laga warqabo yaan la is dhiganin